السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marumaysan tahay in jinni qof la noolaan karo isaga oo la hadlaya una sheegaya waxa dhici doona ka hor antaysan dhicin. maanta waxaan idin hayaa sheeko dhab ah oo ka dhacday dalka Kuwait, sheeko ku saabsan askari caadi ah laakiin wax waliba waxay isbedeleen markii saaxiibkiisii uu bilaabay inuu ogaado siraha mustaqbalka. wax kasta oo uu sheego way rumoobi jireen, wax kasta oo uu saadaaliyo way dhici jireen. laakiin markii la ogaaday sirtiisii, qof waliba noloshiisii way burburtay. dhamaadka sheekadani waxaad isweydiin doontaa hal su'aal: saaxiibkani ma wuxuu ahaa nin caadi ah mise jinni ayaa la noolaa? marka hore muuqaalkani like saar, haddii nagu cusub tahayna subscribe noo saar, aad ay dhiirigelin noogu tahay. waxaan ku jiray shaqo ciidan maalin kasta, waxaan la joogay saaxiibkaygii igu dhow. magaciisii wuxuu ahaa Abdulmawjuud. wuxuu ahaa nin degan, naxariis badan, laakiin indhihiisii waxay ahaayeen kuwo cabsi leh. mararka qaar wuxuu ku eegi jiray si aad u dareento inuusan ku eegaynin, balse uu arkayo wax waliba oo adiga ku qarsoon. waxa ugu yaabka badanaa, wuxuu kuu sheegi jiray waxa mustaqbalka dhici doono, oo mar waliba way dhici jireen. markii hore waxaan u arkayay kaftan, laakiin markii dhacdo weyn ay dhacday, wax waliba way isbedeleen. habeen madow, mid ka mid ah askartii xerada ayaa waashay, wuxuuna qaatay korigiisii dagaalka. kadibna wuu araray. xeradii oo dhan waxay gashay xaalad argagax leh. ciidamadii amniga militariga ayaa yimid. waxay bilaabeen baaritaan adag. qof kasto wuxuu ka baqay in la geliyo xabsi, maxkamad ciidan, iyo inuu mustaqbalkiisii uu burburo. anigana waan argagaxay, ma aanan seexnin habeenkaas. maalintii xigtay, Abdulmawjuud ayaa ii yimid isaga oo dhoola cadeynaya. wuxuuna igu yiri, ha cabsanin, waxba kuguma dhici doonaan. waan yaabay. wuxuu sii watay hadalkiisii: taliyaha guudada ayaa dhibka qaadan doona, adigana waxba kuma gaari doonaan. waxaan ku iri, sideed ku ogaatay? wuxuu si degan iigu yiri, Abdulmawjuud wax waliba wuu ogyahay. markii uu sidaas yiri, qosol cabsi leh ayaan sii daayay. qosolkaasi weli ma aanan ilaawin. 2 maalmood kadib, taliyaha guudada ayaa loo yeeray, waxaana lagu ciqaabay dhacdadii ka dhacday askarta. kadibna waxaa loo wareejiyay meel fog, xabsi ayaa lagu xiray. anigana wax dhibaato oo ima aysan soo gaarin. sida saxda ah, Abdulmawjuud wuxuu sheegay dhacdadani. markaas ayaan ogaaday. waxaan is iri, waxa aad la joogto ma aha nin caadi ah. waxaan sheekadii u sheegay saaxiibkaygii kale oo la oran jiray Maxamed. markii uu maqlay, wuxuu igu yiri, ninkani jinni ayaa la socda. habeenkaasi wuxuu igu yiri, waxaan ku cadeyn doonaa dhacdadani. markii Abdulmawjuud hurday, Maxamed wuxuu dul istaagay madaxiisii. wuxuu bilaabay inuu ku akhriyo Qur'aanka Kariimka. wax yar kadib, jirkii Abdulmawjuud si xoog leh ayuu u gariiray, wuxuuna sameeyay codad aan bani aadam ahayn. aniga cabsi ayaan dareemay. Maxamed wuxuu igu yiri, hadda ma rumaysan tahay? habeenkaas waan seexan waayay. waxaan eegay sariirtii korkaygii taali. kadibna Abdulmawjuud ayaa madaxiisii hoos u soo rogay. waxa aan arkay weligaygii ma ilaabi doono. indhihiisii waxay noqdeen madow gebi ahaanba. wax caddaana kuma jiro. waxay u ekaayeen godad mugdi ah. wuxuu ii dhoola cadeeyay, dhoola cadeyn aan bani aadam ahayn. waxaan dareemay in qalbigaygu u istaagay. subaxdii xigta, Abdulmawjuud ayaa ii yimid. wuxuuna igu yiri, waan ku cafiyay sababtoo ah waan ku jecelahay. kadib codkiisii wuu isbedelay. wuxuuna igu yiri, laakiin Maxamed, mar dambe ma seexan doono. qalbigaygii wuu gariiray. waxaan garwaaqsaday inuu ogaa wax waliba. maalmo yar kadib, Maxamed waxaa ku dhacay xanuun aad u daran. wuxuuna bilaabay inuu miyir beelo. dadkii waxay yiraahdeen maskaxdiisii ayaa saameysantay. waxaa laga saaray ciidanka. muddo yar kadib, wuxuu galay shil, wuuna geeriyooday. ilaa maanta ma garanayo waxa saxda ah la socday Abdulmawjuud. ma wuxuu ahaa nin leh awood qarsoon, mise jinni ayaa la noolaa? hal shay ayaan ogaaday: wax kasta oo uu sheego way rumoobi jireen. qofkii isku dayo inuu sirtiisii ogaado, noloshiisii ayuu waayi jiray.
saaxiibkay Abdulmawjuud weligay mar dambe si aadiya uma aanan arkin qosolkiisii indhihiisii iyo hadalkiisii weli waxay ku dhex jiraan maskaxdaydii mar kasta oo aan xasuusto waxaan isweydiiyaa ma jiro qof agtaydii jooga oo anigu aanan arki karin qisadani waxay ka mid tahay qisooyinka ugu layaabka badan ee ka dhacay Bariga Dhexe waxaan rajaynayaa muuqaalkani wax badan inaad ka faa'iideen qofka walaalkaadii ah muuqaalkani la wadaag waxaa laga yaabaa noloshiisii inay isku bedesho halkan muuqaal oo uu daawaday adigana waxaad ka heli doontaa ajar aad u fara badan walaalaha waxaa looga baahan yahay inay aad ugu xirnaadaan xariga Alle subxaanahu wa ta'aala qofka hadduu ku xiran yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jinni iyo wax waliba oo ku saabsan isma arki doonaan walaalayaal waxaan idinku dhiirigelinayaa ku xirnaanshaha Alle subxaanahu wa ta'aala Ilaahay qofkii ku xirnaada kutubkiisii sidoo kale qofkii ku xirnaada sunnada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu gaari doonaa horumar adduun iyo horumar aakhiro haddii aad rumaysan tahay in jinnigu uu dhab yahay ku qor faallooyinka aayatul kursi ayaa igu filan muuqaalkani like saar sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar waxaynu halkan kusoo gudbin doonaa sheekooyinka ugu argagaxa badan ee ku dhacay daafaha caalamka